الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وأحيا سنته إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى موضوعا محاضرة waxaan kaga hadli doonaa salaada marka salaadu waa mowduuc iska ballaaran oo aada u waasica hal muxaadaro laguma dhammayn karo iyo 2 iyo 3 toona marka inta bilowga intaan ka gaadhno ayaan insha Allah ka hadlaynaa ma hiya salaa salaad maxaa la yidhaahaa dad badan oo tukada ama salaada tukada oo de muslimiintooda tukadaan ayaa haddaad weydiiso tiraahid salaad maxaa la yidhaha ma garanayaan salaad waxay leedahay waxyaalo fara badan waxay leedahay shuruud waxay leedahay arkaan waxay leedahay waajibaad waxay leedahay sunan intaasoo hore waxaa ka horeysa dahaarada oo waxa weeye ruuxu waa inuu weyse qabo uu daahir yahay janaabo daahir ka yahay salaadu waxay leedahay fadli fara badan waxay leedahay xugunka ruuxa salaada ka tagaa muxuu yahay macnaha mowduuc weyn weeye makaanatuha fil islaam salaadu islaamka xaggee kaga jirtaa yacni mowduucaas weyn weeye oo wax badan culimmadu ka hadleen haddaan marka aan bal shuruudda salaada aan i yar taabto horta intaanan shuruudda u gelin maa hiya salaa maxay tahay su-aashii goorta dhow aan sheegay salaaddu marka waxa weeye 2 macnoay leedahay luga alcarabiya salaad waxbaa loo yaqaanaa xagga shareecada islaamka ama fiqigana istilaaxa fiqigana macnay leedahay 2 macno waa isku dhow yihiin laakiin xagga luqada waxaa la yidhaha asalaa bimacna ducaa salaad marka laga hadlayo bimacna ducaa weeye xagga luqada carabiga oo uu baryey weye ilaahay uu baryey macnaa asalaatu bimacna ducaa wuu baryey ilaahay uu baryey weye ama alla bari weeyaan xagga shareecada salaadu waxaa la yidhaahaa aqwaalun wa afcaalun muftatixatun bitakbiir mukhtatimatun bitasliim waa qowlal iyo ficilo qowl wax lagu hadlo iyo ficil la sameeyo oo lagu bilowdo allahu akbar bitakbiir mukhtatimatun loogu dambeysiiyo bitasliim loogu dambeysiiyo assalaamu calaykumna loogu dambeysiiyo wey intaas waa tacriifkeeda oo la gaabiyey meesha waxaan ka fahmaynaa waxyaalaha dadka qaar salaada ay ka horreysiiyaan oo naweytu iyo usalli iyo macnaha inayna salaada ka mid ahayn waayo tacriifka culimmada fuqahada islaamka ay sheegeen waxa weeye waa aqwaalun wa afcaalun muftatixatun bitakbiir mukhtatimatun bitasliim yacni salaadu waa qowlal iyo ficilo lagu bilowday allahu akbar loogu dambeysiiyey assalaamu calaykum marka waxaan intaa ahayn kuma jiro weeyaan shuruuddeeda salaadu shuruud bay leedahay shuruuddeeda 9 weeyaan alislaam ruuxa tukanaya waa inuu muslim yahay walcaql معناها مسلم كل قرية قال باكو بحيدي والعقل روح وين عقل ليه ومحا كو بحي روح مجنونة التمييز وين وحكا الصوع ايو ونا الميرو هذا الاشياء معناها ميدقية بدحية وكلا قرنيو لكن هدو wax yar waxba kala garanaynin oo ilma aad u yar oo kala yahay waxba ma aanu salaad laga rabo weeyaan shuruudeeda waxa kamid ah rafcul xadathayni al-akbari wal asghari laba xadath waa inuu ruux daahir ka yahay janaabo waa inuu lahayn oo macnaha junub waa inuu lahayn ta kale waa inuu weyse qabo mara xadathul asqarka waxaa la yaabaa inuu weyse qabo xadathul akbarka ana waa inuuna janaabo lahayn ama dhiig gabadhu ayna lahayn gabadhi ayna lahayn labadaba waa inuu daahir ka yahay isaalatu nijaasa waa inuuna aysan jirin oo jidhkaaga 3 meelood 4 ayaa laga ilaaliyaa nijaasada jidhkaaga dharkaad xidhan tahay iyo meeshaad ku tukanayso intaas waa inay nijaasa daahir ka tahay nijaasadan waxaa looga jeedaa sida kaadida oo kale xaarka oo kale iyo waxyaalaha lamidka dhiig oo kale waxyaalaha lamidka nijaasa la yidhaha
nijaasada waa inuu daahir ka yahay ruuxu satru lcawra cawradiisu ruuxa waa inay asturan tahay oo hadduu ruuxu maxaanku idhaahaa uu qaawan yahay amana cawradiisu ayna asturayn salaadu ma asaxaysa weeyaan marka waxa shuruuddeeda waxaa ka mid ah min shuruudi salaa waxaa ka mid a salaada shuruuddeeda inuu ruuxu cawradiisu asturan yahay cawrada haddaan iyar taabto ragga cawradiisu waxaa la yidhaha bayna surati warugba yacni ragga cawradiisu waxa weeyaan xudunta ilaa labada low dumarka cawradooduna waa jidhkao dhan baa la yidhaha markay salaada ku jiraan whole body ama jidhkao dhan weeyaan marka cawradaas waa inay asturan tahay markii salaada lagu jiro hadduu ruuxuna dhar haysan ama qaawan yahay salaad kama asaxdo dukhuulul waqtiga salaadu waa inuu galo haddaad hadda tidhaahid salaada berri soo socotaan sii tukanayaa ma asaxayso weeyaan istiqbaalu lqibla ruuxa tukanaya waa inuu qiblada qaabilo ee hadduu ruuxu meel kale u tukado ama qiblada una qaabilan meel kale u jeedsado salaadu ma asaxdo weeyaan anniya ruuxu waa inuu niyo la yimaado oo hadduu ruuxu una niyo la iman salaadu ma asaxayso weeyaan kolka waxaa loo jeedaa yani xadiidkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu yidhi inama alacmaalu binniyaat camalka oo dhan niyuu ku xidhan yahay wa inamaa likulli imriin maa nawaa ruux walibana wuxuu niyoodu helaa marka waxa weeye ruux hadduuna macnaha niyo la iman ma asada haddaan sii yar sharaxno arrinta islaamka waynu nidhi walayidhi waan sheegnay wadiduhu lkufru kaafirka camalkiisa lama aqbalo allah subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi naari hum khaaliduun marka waxa weeye kol hadduu ruux uuna muslim ahayn salaadi kama asaxdo weeyaan ka kale already waa sheegay ruuxu waa inuu caqli leeyahay baynu nidhi hadduu majnuun yahay ama ruux waalan yahay sama asaxdo waxaa daliil oo ah xadiidkii nabigu caleyh isalaatu wasalaam uu yihi rufica alqalamu can halaatin 3 ruux qalamka waa laga qaaday macnaha waajib mukallaf ma aha annaa'imu ruuxa hurda xataa yastiiqi ilaa uu ka tooso waljunuunu ka majnuunu ka waalan xataa yafiiqa ilaa uu ka miirsado wasaqiiru ka yar xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaadho marka yacni kuwaas laga saarayaa meesha wey atamiiz ruux waa inuu tamiiz bayna wadiduhu siqar macnaha wa huwa 7 siniin macnaha yani 7 sano markuu ilmuhu joogo salaada la amri jiray uma yu'maru bisalaati liqowlihi sala allahu alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi muruu abnaa'akum bisalaati li7 awlaadiina amra salaada 7 sano markay jiraan wadurbuhum ku garaaca caleyha korkeeda li10 10 sano markay joogaanna ku garaaca wafariquu baynahum kala kaxeeya fi lmadaajici hurdadana oo kolkuu ilmuhu ay yani wax weeyaan ay hurdaan waa in wiil iyo gabadh laisla seexin wiilasha xataa waa in la kala fogeeyo yacni akhlaaqda islaamka ku dadaalay bay ka mid tahay xadadka waa aniga kolkii already sheegay waxa weeye wuduu ruux waa inuu weyse qabo wa muujibu alxadad ruux hadduu weysadu ka jabto ya yani salaadii waa inuu weysaysto nacam wa shuruuduhu shuruudda xadadkaasi shuruuduhu weysaysiga yaa shardi leh weysaysiga in la weysaysto naftigeeda ayaa shardi shuruud leh waa maxay alislaam ruuxa weysaysanaya waa inuu muslim yahay walcaqlu caqli waa inuu leeyahay tamyiizu waa inuu wax kala soocayo ilma yar niya wa istisxaabu xukmuhaa waxaa looga jeedaa niyada waa inaad xukumkeeda la xiriiriso bian laa yanwi qatcahaa xataa yatatima alwuduu kolkaad weysada bilowda ilaa aad ka dhammaystiri waa inaadan goynin weeyaan oo aadan niyo inaad goyso wainqidaacu muujibin waxaa looga jeedaa wax waajibiya waa inuu ka go-o waistinjaa inuu istinjaysto oo istijmaarun qablahu macnaha waa inaad kolka hore istijaysato ama ood biyo ku istijaysato ama istijmaar aad samayso dhagaxyihii aad ku istijaysato weeyaan weysada ka hor biyuhuna waa inay daahir yihiin aad ku tukanayso wa ibaaxatu biyo lasoo xaday waa inayn ahayn biyo daahira waa inay yihiin wa isaalatu maa yamnacu wusuula almaayi ila albashrati wax jidhka biyuhu inay gaadaan u diidina waa inuusan jirin wa dukhuuli waqti man xadatuhu daa'imun lifardihi waxaa looga jeedaa ruuxa haddii dadka qaar bukaa jira oo salasulbowl dad la yidhaha baa jira salasulbowlku waxa weeye ruux maxaanku idhaahaa kaadidu ayna ka joogsan oo kaadidu markaas ka socoto kaa waa inuu waqtigu galo markuu weysaysanayo leanna hadduu ka hor weysaysto macnaha ma asaxayso weeyaan oo dee wuu jabayaa
وأما فروده ويسيسك فرضيسي فستة والح غسل الوجه وجهه وين ميدو صفة عن وارد ميدو ومنه المضمضة والاستنشاق وجهه قال ميري يوحى كمدا لقشدي يبيه سنك لقشب ولا قسو عليه وحده وجهه وحو كجوغا طولا من منابت الشعر الرأسي وإلى الديق نبوي أنا هو إن ماشي يتمو كسو باللودان إلى قدك انت سكجوغا وجهه وعرضا إلى فروع الأذنان حق بلد كان لبدا دغود ويان يوجه كجوغا وحكمدا ويسيسك فرض كيسا غسل الرجلين الروح واللغوها إنو ميرو إلى الكعبين أنقويها انت لقسو قارو والترتيب إلا ترتيبيا كمدا والموالاة إلا حديديو أيا كمدا ترتيبك waxa weeyaan deewaanad ka bilowdo xagga hore wajiga ilaa aad lugaha ka say laakiin hadaad lugaha ka bilowdo weysadu ma asaado muwaalaadkuna waa in la xidhiidhiyo haduu ruuxu macnaha kala gooyaa laga wadaa weysadii salaadu ma asaado weeyaan والدليل قوله تعالى ويسيسك محل دليله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيري يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي رميو إذا قمتم إلى الصلاة يعني مركات صلاة يسو تاكتان صلاة إلا تكتان ربطان كور فاغسلوا كل صلاة انت إذا ولي قلن كور فاغسلوا وجوهكم وجههن مايدا ويديكم قعمهن مايدا إلى المرافق إلى لقسو قار مرفقة ماشا ما أرتي مرفق كجوغو أو يعني وماشا حبنتا وكجوغ تويان وامسحوا برؤوسكم مدحين أنا مسح عليه مركب معناها وعلى الوجه مايدا قعمها أنا مايدا لكن مدح يساق والله مسيحي دي سنة لقمع عليه وهالمركليه وأرجلكم مايدا ويو حق حوريكو عطفانتاي فاغسلوا وجوهكم مايدا ويه وأيديكم هالكاسكو عطفانتاي وأرجلكم مايدا ويه إلى الكعبين إلى أنقوغ لغا قارو هالكا intaasoo dhan waxaa ku tusinaysaa yacni waxaa intaasoo dhan aynu ka hadlaynay weysaysiguna de waa shuruuddu ka mid yahay salaada wa daliilu tartiibi in la tartiibinayana waxaa daliilu ah xadiidkii nabigu uu yidhi ibda-uu bimaa bada'a allaahu bihi ku bilooba meeshuu ilaahay ka bilaabay oo waa maxay yacni xagee laga bilaabay waa inaha in la tartiibiyo weeyaan وماشي إلهي النبي يسوع أمرن ده كبلوا حاجة لقى بلاوي ده أنا حلاقة بلاوي نية لقى صوب بلاوي وجهك لقى صوب بلاوي ساسوي رواه حديث كان الناس إمام النسائي بوريه في سننه الكبير بهذا اللفظ نعم طيب ابدأوا باللفظ وحولي ابدأ باللفظ ابدأ بكو بلاوي بالنون الآخر طيب تكلنا وحوي والدليل الموالاة حريرين تنا واحد دليلها حديث صاحب المعه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبغى وحو أركي أنه لما رأى رجلا نبغى وحو أركي في قدمه لكتيسة لمعة ميل دلاليسة ميل عد قدر درهمي أو درهم لك معناها هل شيرين لك لم يصيبها الماء بيه أين قارن فأمره النبي وحو أمري بالعادة للسعرية وهو كل سعري لما يكون بيشن ويعضهاي وواجبه التسمية مع الذكر وواجبه يعني بسم الله تعالى ويسيد سيجمرك باللابسه يا انت waxay ahayd xagga weysaysiga faradkiisii ونواقضه weysaysiga waxa buriya 8 baa burisa الخارج من السبيلين waxa labada wada ka soo baxa labada wada waxa looga jeedaa waxa ka soo baxa qubulka ama dhakarka ka soo baxa ده قبل مركز لليه واحد ويان يعني واحد قبل كذكر كواحد لو جدا ننكا عوردي يسوي كصوبها يا أما الله بدأ مو سوق لي معناها برجع قبضة يلا بدأ واحد ويا كصوبها يا برينيا أما الضبط كصوبها لا تاسع بريسة ويسدي والخارج الفاحش النجس من الجسد واحد نجاسة وجرك كصوبها أنا وبريا وزوال العقل روح عقله كتجابرية ومسؤول المرأة بشهوة قبل مسلمة هو تابته شهوة أضو دنكله
oo jimaac iyo waxaa ugu dhowaanaya haddaad taabato weysadu way buraysaa wey. dayb wamasul farji bilyadi inaad farjiga ruuxa taabato, farjiga ka ragga iyo ka dumarka waa la qubulan kaana ow duburan buy. farji marka la yidhaaho dabaduna way soo gashaa meeshan cawrada ahee rag iyo dumarka way, ama farjiga lena ama maaragtay labadaas wey. haddaad taabato gacantaada haddaad ku taabato farjiga ama dakarka ragga haddaad gacantaada ku taabato ama daba ruux ama ilmo yar dabadiisa haddaad taabato weysadu way burtay. wa aklu laxmul jazuur hilibka geela haddaad cunto weysadu way burtay. wa taqsiilu lmeyit meyd inaad maydho yay ku burtaa, waa sida madhab qabo xambaliyadu isay qabaan, qaar waxay dhaheen ma burinaya haddaad meyd maydho. wariddatu can alislaam acadana allahu min dalik, ilaahay haynaga nabadgeliye ruuxa oo maaragtay maxaan ku idhahaa islaamka ka ridooba oo ka noqda diinta islaamka ayaa burinaya. dayb kolka intaasina wixii burinayay weeyaan iyo weysada kaa burinayo waa anigaa sheegay. wax ka soo baxa dabada ama qubulka, wax nijaaso jirka ka soo baxa, caqligoo ruuxa ka taga, gabadh adoo taabto oo shahwo u taabta, dakarka ama farjiga oo taabato gacantaada ku taabato, haddaad ilmo yar hadda dabadiisa taabato ama ka maydho way kaa burtay. hilibka geeloo la cuno iyo meydkoo la maydho oo laysku khilaafsan yahay. shuruudda salaada waa aniga hadda ka hor soo sheegay. sharaxeeda dheer waxaa ka mid a 3 meelood inay nijaaso daahir ka yihiin. waa badanka jidhkaaga, marada aad ku tukanayso iyo buqcada aad ku tukanayso. daliilkuna waxa weeye qowluhu tacaala, ilaahay uu yidhi wathiyaabaka fatahhir, dharkaaga dahir baa la yidhi. rujza bahju rijzana culimadu waxay ku fasiraan yani waxyaalaha najista ama waxaaba tidhaha rujza yani sanamka iyo waxaa ka tag. cawradoo la astura ka mid a oo de waa anigii sharxay. cawrka ninka waxa weeye min asurati ila rukba, gabadhana xorta ana jidhkeeda oo dhan waa xor waa cawra markay tukanayso ilaa wejiga iyo kafka, labada kaf mooyaane. nacam. wadaliilu waxaa daliil arrintaa u ah yaa bani aadama bu alla yidhi subxaana wa tacaala, bani aadamu macnaha waxaa laga hadlayaa dharka. khuduu ziinatakum, khuduu qaata ziinatakum dharkiina quruxdiina cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaatin, salaad kasta markaad tukanaysaan dharkiina fiican qaata. waxaa ka mid a inuu waqtigu galo oo salaadda haddaan waqtigeedu gelin yani ma noqonayso. markii jibriil nabiga u yimid caleyh salaatu wasalaam, xadiidka jibriil wuxuu yidhi yaa maxamed asalaatu bayna haatayni alwaqtayni, waqti buu baray marka wuxuu yidhi labadaa waqti inta ka dhexla weeyaan salaadu. wa qowluhu tacaala, ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa ay mafruudan fi lawqaat, salaadu farad weeye waqtigeeda in lagu tukado. wadaliilu awqaati qowluhu tacaala, ilaahay baa qur-aanka ku yidhi أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة صلاة أوب لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كل وقت كي تلمام الساعة إلى غسق الليل وقرآن الفجر، معناها هو صلاة الفجر كان لقاها ضياء إن قرآن الفجر كان مشهودا. kolka qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay meesha waqtiyaha la tukanayo, cadceedu markay intayna soo bixin, duluuki shams cadceedu markay madooba macnaha liduluuki shams markay gabal ka dhacdo ilaa qasaqi leyli, habeenka madowgiisa. wa qur'aan alfajri, salaada fajarka laga hadlaya iyo qur-aanka lagu aqriyo. waa kaana mashhuuda bale, marka malaa'ig badan baa dhagaysato oo timaado wey meeshaana. nacam. waxaa ka mid ah waa kaynu nidhi waxaa ka mid a qiblada oo la qaabilo, shuruudda salaada ka mid tahay. waxaa daliil u ah qowluhu tacaala, ilaahu yidhi qad naraa taqaluba wejhika fi samaa, qad naraa waan aragnaa taqaluba wejigaaga aad gedgedinayso fi samaa, samada aad kolba dhan u gedinayso. falanuwaliyannaka buu alla yidhi, waa nuuru tawkiid, waxaanu kuu jahaynaynaa qiblatan meel qiblo ah tardaha aad raalli ka noqoto. waa maxay qiblada weeye hadda loo tukado. fawalli wajhaka, wejigaaga jeedi shadr almasjid alxaraam, masjid alxaraam wejigaaga u jeedi. waxaytumaa kuntum, meel kastoo tihiina fawalluu wujuuhakum shadrahu, meel kastoo joogtaanna xaggaa unu soo jeedsadaa la yidhi. salaada shuruuddeeda waxaa ka mid a niyada, saan u sheegay, niyada maxalkeeduna waa qalbiga. watalaafudu biha bidca, in niyada lagu hadlo naweytu usalli la yidhaha bidco weeyaan. wadaliilu qowluhu, xadiidka nabiga daliilu ah sala allah alay wasalam, nabigu yii
inama alacmaalu binniyaat camal kasta niyadu ku xidhan yahay wa inamaa likulli imri'in maa nawaa ruux kastana wuxuu helaa wuxuu macnaha uu niyoodo un marka saa u sheegayba mowduuc dheer weeye insha allah tan waa macnaha darsigii ugu horreeyey waan ka hadli doonaa insha allah salaada arkaanteeda shuruudda waxaan ujeedaa waajibaadkeeda sunankeeda fadligeeda macnaha xukunkeeda waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala درسك ku xiga والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم